بريها وحا مقالة آد وقبصدي وحا اللي يرى صرف ليا فوركس أي آد وهايستا أساقونا قيبتا حرامتا وكم ديها علوم بدن وي عدايا هورنا وي اوغا هادلين دب دنبنا علومadu waa uga hadleen qaybta xaraamta oo akli amwaal الناس بالباطل ayuu kamid yahay mar waxa soo galaysa ribo mar waxa soo galaya jahaalo mar waxa soo galaya qarar waxaas oo dhan oo xoolaha maalka xaraamta waxa weeyaan uu ku yimaado kulligoodba waa laga helayaa wax kala soo dheer oo dadku aysan ku baraarugsanay wax sarif la yiraahdaa meeshaan ma taalo dadka xoolaha laga qaadaa xoolahoodii baa loo celiyaa waxa yaala intaas weey xoolaha laga aruuriyaa oo laga qaadaa markaan u dirnay rag arintaas aad oo la socday oo yaqaanay oo daba galay waxay noo sheegeen waxa sarif la yiraahdaa inuusan meeshaba oolin ama ribaba ha ahaado xaraan kasta ha ahaade dariiqada hadda lagu macaamila aqlabkeedu inay tahay dadka xoolaha in laga qaado xoolihi laftigoodina loo celiyo kuwa cusub oo lacagtii la ordaya ay keenaan kuwii hore bishu markay u dhamaato la siiyo waliba bishu markay tahay 15 dambe meelahaas xisaabta qabashadeeda in la furo si xoolahi dadka looga kuwa cusub loo helo kuwii horena loogu bixiyo saa la iskaga daba wareejiyo marka dambana ay ku dhamaato telefoonada oo la dansado iyo hebel oo cararay iyo dadkii gacnaha taagahaya oo qof walba lacag baa igu jirtay waa waray u leeyahay wayna u yimaadeen culumada dad intay dadkay lacagta u dhiibeen oo ka shaqeynayeen telefoonadii dansadeen carareen ilaa hadda aan la haynin culumada u yimaadeen kuwa kale oo la jiidahaya culumada loo keenay oo intaas oo qof lacag ay ku leedahay oo ay leeyihiin aawa faa'iidada aan noo sheegteen oo oranahaya sarifkii aan sarifaynay waxa u jeedaan raqamkii aan ku sarifaynay iyo raqam sirrigii waana la ka xirta istilaab baana la ka saaray meel u dhaqaajinana ma naqaano saasuu nooga xiran yahay wax lacag la yiraahdo meesha faa'iido ma taale waxaagi ayaa lagu sarifahayaa wixii dheeraada oo waxaagi ka dheeraad ah waa dad xoolahood oo lagu siinayo ka digtoono culimadu waxay ka hadleen qofkii qaatay ma doonan karaa lafihiisa maya waxa qaadatay iska xisaabi wixii dheeraad kugu oo lafahaadi ka dheeraad ah hadhowto markii waxaas ay fashilmaan miskiin la dhacay u soo qaad oo ku wareeji oo si ayaga ha u deyn ayaga waxba xalaal iyo xaraam kala yaqaanaan isii dhalafahaygi ka soo qaad hay hadii 2,000 aad u dhiibatay oo 2,000 ay ku siiyeen bilna 500 ay ku siiyeen aad cuntay oo kun uu kuugu dhiman yahay ayaguna 2,000 baan ku haynaa ay ku leeyeen 2,000 lafaha isiiyade ka soo qaad 1,000 baad ka isticmaalaysaa kunka kale adigu maliid waxaana waa dad lacagtooda wareejinayo wayna dhacdaa tuugada noocaas aad u fara badan tahay waxa cajiib ah haddaan ba sharci ilaahay la aadin dadku ma waxay fahmi waayeen wadanka kambaniyaal waaweyn oo milyaneeraa jooga khasnadahoodana ay ka buuxda kaash fara badan faa'iidada ay sanadkii keenaana wax yar ay tahay 30% 20% iyo wax la mid ay tahay ma waxay dadku fahmi waayeen faa'iido la leeyahay waa bil kaste kun baa dhiibaysaa 400 baad qaadanaysaa bishii kun baa dhiibaysaa 400 baa qaadanaysaa qaar baa 500 la soo siiyo leey faa'iidada bisha waxa faa'iido 500 kun baana dhiibtay maxaa kambaniyalkan waaweyn oo milyaneerada oo kaashka haysta faa'iidada aan durdurka ah oo iska socoto bil walba la faa'iidaaya maxaa ka indhasaabay khubaro dhaqaale leeyihiin sarif bay yaqaanaan nooc kasto lacag loo raadiyo yaqaanaan dadkaas kambaniyalka ma siri karaan dadkan waxay siri karaan waa hooyada yaanyada gadaysa iyo midda dahabkeeda soo furaysa iyo midka bakhaarka yarka jooga iyo midda ilmaha biilkooda ka soo jafaalinaysa kuwa la dhacahayo oo la sirahayaa kuwaas weey xoolahooda la cunahayo إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إمي سأغون يروح له هي لو ديبي كن دولار يلا بكون أغون أي لهاي إمي سافرق الله وشو إمي سا waxa weey hooyaya yagidaysa xogaageeda ay soo qaad yaa shaqaysan lahaa hadii kun dollar inta dhibatay bil walba 400 aa qaadanaysid yaaba shaqayn lahaa dareeri lahaa qof walba xoolihiisa intuu iska seexdo dadalan lahaa aqliga taas ku fahamsiinaya inta la gaarin ma xalaal ba mase waa xaraam qofkii galay ilaahay ha uga toobad keenay si degdeg ah waxa uu ku leeyahay oo raasumaalkiisi ahna ha ka qaado markuu ka qaado intii uu ka cunay waa raasumaalkiisa waxaana fashilkooda waa dhow yihiin haddana waa bilowdeen fashilkooduna waa dhow yihiin
آدي أدبن وقدقين ولا ليال الدنيا وحن شوقنا مال مكة وبنوي وحان هيسنا هدي إلهي سبحانه وتعالى قناعة إنه قدره حرام ومبهني ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها وحي وحيودي ملك جبريل oo igu afuufay oo ii waxyooday naf dhimanaysa ma jirto ilaa ay dhamaystirato wixii ay cuni lahayd iyo wixii ajasheedii ilaa ay dhamaystirato iyo risqigi ay quudan lahayd qof dhimanaya ma jiro haddii xabad moos ay noloshaada inaad quudati ay ku qornayd ma dhimanaysid ilaa xabada mooska aad cuntid oo ajashaada iyo risqigaaga labadaba aad dhamaystiratid markaasaa nabigu yiri fattaqullaha wa ajmilu fi talab ilaahay ka cabsada oo qaabka ah wax u raadinaysaan qurxiya oo dariiq xalaal ku raadiya wala yahmilanna ahadakum istibtaa'u ar-rizqi an yatlubahu bima'siyah rizqigi oo qofku uu daahsaday yeynan ku xambaarin inuu wada xaraama ku raadiyo yeynan ku xambaarin fa inna ma 'inda Allah la yunalu illa bi ta'atihi إلهي أكتيس وحياله لقما قاري كرو إلا إلهي طاعديسا إيا وضد حلاشا مويانه سكلا لقما قاري كرو رزقي مركو إسلاده وكاسو الضاهي أرنكا يوننكو حنبار إن هذا حرام عتنينكو حنبار اتقوا الله في أموالكم اتقوا الله في أموالكم اتقوا الله في أموالكم إلهي أغبق مالكين وطريقة أتكسر شقين إنسان حلالها أهات وضد أتكب بحين إنسان حلالها أهات نبي وحيري عليه الصلاة والسلام أضونك إلهي إنه هرتاقية هي كالزول مهيو إلى سؤالات دورا لويديو وحاكم إذا سؤالات مالكيسا حقيك سو شقيي حقيس أكب بحيي أيا لويدينا ما أنت كانس بعض هاي سطاع أين هيسنين رجي هانتي بدن كتجي أو مركي دنتين كرفنتو ذا لو إيفشي أو هانتي دو ذا أن لقى كرفنين رجاسي وحي كتجين هانتي فرب بدن أو دروق حرام أو كل الدوان أيكو شقيان مركي دنتين أيال يري كرفنها لو عارية يوها الله قضوا كرفن با الله قضي الماي كتجين مالكي كنت مانا هيا وحلقة صومري أن أجين حلال يا حلال وحكي شقي أبا سجى أطالع أيجو هوشو قبصنا هيا دل يهلا عن كلا هينا كنت مانا هيا أيا لو ريجور نحلي عذاب كيسي يعقوبة دي سنة سجى كباقته رجنا واقع نحلي لواقعتي ما أنت يكون قد هاي إن أتكتخلصتي هانتي ذا حرام تا أو أتكشقيسي أو إلهي أجيهي أدوجنا أدوكته سكة استوقف كان وقري صاحب كقري كان كقري إلهي وحبك ما قرين كت شيلين كتيب كاجا كتير الدب يقول لعبه قريها الدب وفيري بخارة هذا الدب وفيري عمل كأكشقيسي الدب وفيري هذه الدولة دي لهاي يا هذه شخصي أولها ما أنت يكون قد وده إن أتكدح بحديد ولو جاء قبل أتكقادتي أدو قاوم بأك بحديد هاي سديه هندت كاكولا يا أبا هيا عذابك إلهي بكا قدر هل كامرك اللي قديقو ولا جاك على الدريره وحسابتي سلقوا صوت ضلعوه المهون السير ربان أي كيلان تاسا والله كودر أن تادون وحي كشرتا ما أنت إني كوجادان مسلمين تو إن أكدح بحري وبري أكتاي كوبحي ميلها لوغو تلقى إن لوغو بحي مالك حرام تا oo waxa weeyaan duruqda iyo wadooyinka la sameeynayo isbitaalada dadka masaakiinta oo baqtinahaya iskaga bixi meelahaas iska takhallus inaad ilaahay u toobad keentay allaha kugu duwo waxa xaraamtaan aad ka dhexbaxd rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.